horena uga hadalnay inaan muxuu ahaa aan ka hadla maantana arrintaas waxaa weeye mar haddii waqti uu socdo sidaad la socotiin markii Kismaayo ka dhacay muddo hal bil ah oo ku eg 20-ka bishaan ayaa loo qabtay in dowladda federaalka ay gogashii loo wada hadli lahay doorashada la qabtay horena waxaan u eray siyaasadda masaajidada laga daayo bannaanka aan soo baxno aan ka hadalno waxa jira oo dhabta ilaa iyo hadda waxaad moodaa in masaajidada lagu wareegaysanayo masaajidkii bakaaraha ayaan arkay daraas shalay in la joogay oo jamcaha ah waxa aan rabnaa waxa weeye time ayaa socdo waqti ayaa socdo dowladda federaalka madaxweynaheeda waxaan rabnaa in gogashii looga wada hadli lahay doorashada oo fidiyo haddii 20-ka bishaan ay ku dhaafto gogashaas iyadoon la fidin waxaa caddaana waddankeena inuu riski galayo oo khatar uu galayo marka murugo iga haysa ayaan idinkula soo leexday waxaan rabnaa sida inaan xasuusiyo madaxweynaha iyo tiimkiisa inay fidiyaan gogashii looga wada hadli lahay doorashada حق يا حلالك ولا وضع قيب قلاي هذا دوم هاسنتي. حتى قطرت ودنك وقلاي لواتنك بش. وحا صورة قلا إن محوها أصحابتك لا وأنا دولة محوها هذا ما أنت دونا إن حلك كلو رجال إن يسميستان دور شيء وقار إن يسميستان سيدا يجب أسميستان هربا يوسميستان أو قبل كبنادر يوسميين وحوق دور شو وحسب جي اس بي اس صباح. قدومي كحجانك وادين كرتمان تبحا قدومي كحجانك دمر هدي فيري أنا جوحنا لنا هي برلمان كمركي أنجوجنا حير وصالا لنا ونسكت رقمه قفك وائنا وفيس كيس يوجي كيس لا أقون صدا هدي حلوان أو إسكسوف ديستو وجي كيس وقرصينيا هاي هدو سوف ديستو شك بدنا كقول قفك محلوان با مقف عادي ولا سلاح قليبة marka shaki aba igal aan ruuxay uu shaki igal shaqaadamada oo gabar meelaha soo qabsaday oo oskeena baarlamaanka sidaasaan aan islahay markii daban waa isla fahanay wixii oo dhan marka balka wacdaad ma inay gudoomiye tahay ma gudoomiye inay tahay mar walba wacdaad laakiin waxaan diiday in xeer hoosaadka loo gafo waxa la rabaa qofka xildhibaanka qaab libiskiisa lagu garto ayaa jira qaab xildhibaannimadiisa lagu garto ayaa jira haddii maaskara madaxa aad soo gashatid ee kursi aad soo fadhiisad xildhibaan inaad tahay in xildhibaan daahir tahay waa in lagu kala ogaadaa waxaan u mahadcelinayaa shirkadda Hormuud Salaam Foundation ee 14 sano ay garab taagneed dadkan waxbarasho ka quusteen niyad jabsanaayeen meel xaafad oo basiir deganaa niyad ahaan u niyad jabsanaay waxaan leeyahay Hormuud Salaam Foundation la'aanteed dadkan ma najaxeen waxa hadda dugsi sare ka baxday 150 arday oo wiilal iyo gabdho iskugu jiraan waxa jaamacadaha dhigto 55 xamar ay ka dhigtaan dibadana 25 jirto 7 qof ayaa jaamacad u baxday oo rajo ka qabin inay wax bartaan mustaqbal ahaan waxaan leeyahay Hormuud Salaam Foundation waa mahadsan yihiin garab istaag ay noo muujeen waxaan kaloo u mahadcelinayaa hay'adda albayaan ee ka dhisan dalka Koonfur Afrika dad Soomaaliyeed madax ka yihiin iyo jaaliyadda Koonfur Afrika ee Soomaaliyeed dadkaas oo ninka hogaamiya hay'adda albayaan waxa la yiraahdaa Sheekh Xasan Guure waa iyadana laf dhabarka jamciidan ay ku taagan tahay ee la garab istaagay in aan ummadaas oo garab istaagno waxaan rabaa shakhsiyaad ilaan oo ayagana mar walba iyo saacad walba na garab taagan oo ganacsato ah waxaan leeyahay ganacsade Jibriil Qaarey mahadsanid ganacsade Xuseen Goley ganacsade Cali Cabdullaahi Axmed Cali Waraabe waxaan kaloo u mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Mongaab gudoomiyaha hore gobolka Madaale gudoomiyaha hore gobolka Yuusuf Xuseen Jimcaale gudoomiyaha hore gobolka Umar Finish gudoomiyaha hore gobolka gudoomiyaha Cabdigaabow waxaan kaloo u mahadcelinayaa ganacsato Soomaaliyeed oo fara badan iyo siyaasiyiin akhyaar waxaan kaloo u mahadcelinayaa ganacsatada u mahadcelinaya ku jiro walaashay Raxmo Cumar oo ganacsato ah oo degan dalka Nairobi ay idana gacan weyn nasiisay
waxaan kaloo mahadcelinayaa ganacsada Ilka Case oo ah ganacsada degan dalka Kenya waxaan u mahadcelinayaa ganacsada Harqaanle waxaan u mahadcelinayaa ummadda Soomaaliyeed meel ay adduunyada ka joogaan waxaan qaasatan u mahadcelinayaa Maxamuud Geyle ambassador Qadiim Ali madaxweynihii hore ee toddobaad ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo waxaan u mahadcelinayaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxaan u mahadcelinayaa xogeyaad xafiiska ra'iisul wasaaraha Kamaal Guutaale waxaan leeyahay dhamaantood intaan sheeginba way mahadsan yihiin Cabdiraxmaan Odawaa ayaa ah dadka asigana u mahadcelinayo wasiirka Bashiir Maxamed Jaamac xildhibaanna ah asigana gacaweyna siiyay wasiir Bidhaan Buramiyo intaas kadib waxaan leeyahay dadka nacaawi waxay gaarayaan 384 qof dadkan hay'ado caalami ma caawiyaan Soomaalidaas ayaan ka qaadaa marka waxaan leeyahay mahadsanidin walaalkay Ismaan Cadaawe oo dekada furdada joogo waxaan leeyahay waa mahadsan tahay horena uga hadalnay inaan muxuu ahaa aan ka hadla maantana arrintaas waxaa weeye mar haddii waqti uu socdo sidaad la socotiin Kismaayo ka dhacay muddo hal bil ah oo ku eg 20 bishan ayaa loo qabtay in dowladda federaalka ay gobashii loo wada hadli lahay doorashada la qabtay horena waxaan u eray siyaasadda masaajidada laga daayo banaanka aan soo baxno aan ka hadalno waxa jira oo dhabta ilaa iyo hadda waxaad moodaa in masaajidada lagu wareegaysanayo masaajidkii bakaaraha ayaan arkay daraas shalay in la joogay oo jimcaha ah waxa aan rabnaa waxa weeye time ayaa socdo waqti ayaa socdo dowladda federaalka madaxweynaheeda waxaan rabnaa in gogashii looga wada hadli lahay doorashada oo fidiyo haddii 20 bishan ay ku dhaafto gogashaas iyadoon la fidin waxaa caddaana waddankeena inuu riski galayo oo khatar uu galayo marka murugo iga haysa ayaan idinkula soo leexday waxaan rabnaa sida inaan xasuusiyo madaxweynaha iyo tiimkiisa inay fidiyaan gogashii looga wada hadli lahay doorashada حق يا حلالك ولا وضع قيب قلعي هذا دوم هاسنتي حتى قتلت ودنك وقلعي لو تنكبش وحا صورة قلة إن محوها أصحابتك لا وأنا دولة محوها هذا ما أنت دونا إن حلك كلو رجال إن يسميستان دور شيء وقار إن يسميستان سيدا يجب أسميستان هربا يسميستان أو قبل كبنادر أي وسميين وحوق دور شو وحسب جي اس بي اسكو صباح gudoomiye ku-xigeenka waad inkartay maanta maxaa gudoomiye ku-xigeenka de mar haddii fiiri annaga waxaan leenahay baarlamaanka markii aan joogno xeer hoosaadaan leenahay oon isku dhaqno qofka waa inuu fayskiisa iyo wejigiisa la aqoonsadaa haddii xildhibaan uu iska soo fadhiisto wejigiisa uu qarsan yahay hadduu soo fadhiisto shaki badanaa ku galaa qofkan ma xildhibaan baa ma qof caadi oo la soo dhexgeliyeyba marka shakiyaaba igale ani ruuxayga uu shaki igale sheekh aadamada oo gabar meelahan ka soo qabsaday oo oskeena baarlamaanka sidaasaan aan islahay marka markii dambana waa isla fahanay wixii oo dhan marka balaga ku cadaato ma inay gudoomiye tahay ma gudoomiye inay tahay mar walba waa cadaat laakiin waxaan diiday in xeer hoosaadka loo gafo waxaa la rabaa qofka xildhibaanka qaab libiskiisa lagu garto ayaa jira qaab xildhibaannimadiisa lagu garto ayaa jira haddii maaskara madaxa aad soo gashatid ee kursi aad soo fadhiisad xildhibaan inaad tahay in xildhibaan daahir tahay waa in lagu kala ogaadaa